السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نحمد ونصلي على رسول الكريم. ومركلي ولا الكلمة محمد حسن وإذا لك سلوا هذا الشبكة السومالي أكاديمي وحين نسعد 10 إني كسب سنة جافا ذا عشان كنا قدام ب10 كانوا ها أو كسب سنة introduction to variables variable اللي هذا يصير لو استعماله يصير له يعني value لو سيو sida ay number u qaataan iyo sida ay waxay kala yihiin waxaan soo marnay waxa la yiraahdo integer ama int ka soo qaato numbers or decimal numbers string ka soo qaato xarfaha cha ka soo qaato string ka soo qaato erayada cha ka soo qaato xarfaha w a b c d xarf kaligiis yani wax kala saraxsanayn iyo double ka soo qaato numberka dot wato inshallah taala maanta waxaan baranaynaa cashir kale hore u sii soconaynaa iyo ruleska iyo sida loo magacaabo variable. Okay, so marka hadii aad rabtid new class inuu ku dartid new class aan ku daraynaa dhinaca bidix markaad abuurto classka right click ku sii new tag class ka sii tag magac u bixi magacan waxa u bixinaynaa variable. Okay, here is something mar walba oo aad class magacood bixinayso inta badan waxa fiican inaad ka dhigto capital letter xarafka koobaad. tusaale ahaan haddii aan variable dhahay waa ina v da capital ka dhigaa, haddii aan u bixinayo g waa ina g da capital ka dhigaa. kubit ka diidi maayo laakiin sida fiican weeyaan oo inta badan dadka programming ay isticmaalaan way idin sheegi doonaa. variable capital ka dhig, variable name, variable names aan bixinaynaa kadibna finish aad haysaa. Okay, hadda class cusub noo soo baxayo oo la yiraahdo variable name. hadda dhinacan bidixa fiiriso inta waxa yaalo variable names.java. Okay, variable names.java waxa loo capital letter looga dhigayaa because classka marka aad magac u bixinaysid waxa kaga bedelaysaa variable value. variable marka u bixinaysid magaca asiga waxaad ka dhigaysaa small letter public static void main string. Okay, hiyo kale markaad dhahay tusaale ahaan hadda waxaad rabtaa kale integer int inaad magac siiso numbers rabtaa inaad dhahdo numbers. Okay, markaad class magac u bixinaysid waxa fiican inaad capital letter ka dhigto. markaad variable aad magac u bixinaysidna waxa fiican inaad ka dhigto variable xarafka koobaad small letter si aad u kala saarto which one is class name and which one is a variable value. Okay, midda kale markii aad variable magac siinaysid waxa kala fiican ayagana variable marwalba inaad waxa fiican marwalba inaad ka dhigato small letter. soo kale variable waxa ayadana aan mamnuuc ah yani aanan fiicnayn aan aqbalin java inaad number bixiso. tusaale ahaan inti aad dhahdo numberkan waxa la yiraahdaa 2 ayadana ma yeelayo computerka qalad jiro leeyahay. hadii aan korgeey hadda wajid soo xariiqa soo maartid wuxuu leeyahay macquul maahan waxaas lama aqbalo. sidoo kale hadii aad dhahdo waxaan ka dhigayaa symbols like calaamada dollar sign oo kale aad dhahdo capital computerka yani ma fiicno in laga bilaabo dollar sign ama magac loo baxsho. wax ka wanaagsan inaad isticmaasho magac laakiin waxa sameey kartaa tusaale ahaan int number 1. okay, no problem. int or integer number 3, no problem. Okay, midda kale waxa fiican oo kale in la dhahdo waxa dhaha kartaa inaad underscore underline aad dhexda ka geliso. tusaale ahaan int number underscore 1. oh sorry, 1 is underscore 1. you see, no problem. so mar walba xusuusnaa variable mar walba ka dhig class name mar walba capital letter ka dhig xarafka koobaad. variable markaad value siinaysidna mar walba xarafka koobaad small letter ka dhig. sidoo kale haddii aad isticmaalaysid string arabtaa inaad magac u bixiso
idan waxa fiican inaad magaca sida isla same rules isku mid weeyaan waxa dhigi kartaa direct string salahan first underscore first name ama waxa dhigi kartaa string first name يعني هذا فرق ودحي حقاني حقان waxa weeyaan kan waxaan isticmaalaa underscore wala first name underscore first underscore name kan kale first iyo name ti kale oo aan capital letter ka dhigay yani capital letter labaad waxay kala saaraysaa waxa inay laba magac yihiin ama laba erey oo la isku geeyo first name sidoo kale hadii aragtid in dhahdid tusaalahan string second name okay see easy second name magaca kale also easy you can use sidoo kale isticmaal kartaa string markii aad wax magaca aad u bixinayso inta sakoon keysayna maanta variable names cashirka uu noo sii socda insha Allah taala cashirka noogu xig waxa weeyaan sidee variableadan value loo siiyaa waxa aad siisayna see loo soo printer gareeyaa tusaalahaan hadda waxaad tidhi int number is equal 34 gaas see yani aan shashada usoo saara aan usoo baxsha iyo cashir kale kasii badan ay noo soo socdo aad maasan tahay daawasho aad daawatay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh